إيران ayaa soo cusboonaysiisay isbaaradii ay dhigatay marinbiyoodka Hormuz kadib markii maanta ay ku dhawaaqday in la casriyeeyay habka lacag bixinta ee isbaaradaasi. Haddaba warbixintan waxaan kugu wadaagi doonaa maxay tahay sababta Iiraan ay u daneynayso in markab kasta ee doonaya in marinbiyoodka Hormuz si nabad ah inuu u gudbo ay u dul saartay lacag waliba ay ugu dhawaaqday lacagta la isticmaalayo in ay noqon doonto lacag digital ah. Hadda waa lacagta Bitcoin maraakiibta aan haysanna lacagtaasi Bitcoin ama aan bixin aan wadadaasi loo furi doonin. sidoo kale warbixintan waxaan kugu wadaagi doonaa arintan ma waxay sii kordhin doontaa khatarta amniga ee marinbiyoodkaasi mise waa ay sii yareyn doontaa. Mareykankuse muxuu ka dhigi doonaa Iiraan si lacag intee leeg ayaa dabcan kaga soo xaroon doona isbaaradaasi amaba qaabkan hadda ay ku doonayso in maraakiibta halkaasi maraya in ay lacag ugu qaadato. anigu waxaan ahay Adfitaax Durdur halkaan naga daawanaysaan waa Durdur TV. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore inala joogtayna waan kaaga mahadcelinaynaa inala joog. aragtidaadi waa inoo muhiim, halka hoose ee faalada inoogu reeb. waad mahadsantahay.